بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. waxaa farxad u ah walaalihiin tasjiilaat ibn xambal alislaamiya inay idiin soo bandhigaan hadihi alkalimata alqayima lisheykh xasan xabeeb raximahu llahu tacaala. salafi iyo salaf waxaa la yidhaha aslan wixii horeeyaa la yidhaha. nabigu sal alla alay slam wuxuu yidhi allahuma ajcalhu faradan wa salafan liahlihi. carruurkii yarkaa markii uu ku tukanayo ilmaha yaran salafan liahlihi, miduu hormaray salaf waa la yidhaha, midka hormaray waa la yidhaha. salaf horta waa wixii horeeya. daynta lafteeda waa la yidhaha, dayna waa la yidhaha. salafi marka ninkaan waa nin salafiya marka laleeyahay looma jeedo asagaan hadda meeshaan taagan awaagii beder noolay laga moodo. horta haddaad wadaada u fahamtay ninka salafi maanta laleeyahay inuu yahay nin waagii nabiga joogay ama waagii imaamu shaafici nin joogay maaha, mana malaynayo inaad u qaadatay, laakiin uqluudaadaad ula jeedaa. anigoo ku fahmaya salafi waxaa loo jeedaa, waxaa la yidhaha kullu man kana yadcuu ila ma kana calayhi asalaf saalix. wixii salafi saalix ku sugnaayeen qofkii dadka ugu yeeraya ayaa salafi la yidhaha. qofkii dadka ugu yeeraya ayaa salafi la yidhaha, wixii nabiga iyo saaxiibadii iyo taabiciin ay ku sugnaayeen. daa'ifa salafiyana waa daa'ifada dadka ugu yeeraysa ilaa ma kana calayhi asalaf saalix. salaf saalix waa ku sugnaayeen dadka ugu yeeraya. salafiyaduna maaha urur, maaha xisbi dhisanna maaha, albaab laga soo galana male, diiwaan loo hayana male. qaadiriyada diiwaan dheeraa loo hayo, cabdulqaadirka ha loo hayo. axmediyadana mid kalaa loo hayaa, axmed bin idriis gala. midka maaragtay shaaficiyadana shaaficiyow galaa. alaysa dalik? kulligood muasis iyo munadim iyo nin horeeyey oo bilaabay leeyihiin xarakaadka. xasan albanna waa muasis lixarakati ikhwaan almuslimiin, wakadalika moxamed ilyas muasis lixarakat atabliiq. soo ma duruqdaas oo dhan waxay leeyihiin mu'asisyaal kama. daa'ifa salafiya mu'asis bilaabay oo aan nabiga ahayn ma qabto. waxeeda dhan waxay ku kooban yihiin wardadow irjicuu ilaa ma kana calayhi salafi saalix. urur la gelaya ma jiro. inta hadda meeshaas waxa fadhiya nin aniga iyo abtirsada miyaa la arkaa oo xasaniye la yidhaha? ya aniga nin aan xaraysta ma jira. ya adinkoo wada joogo wada dhan soo idinma dhihin kuwanuu salafiyiin, adinka dhan salafiyiin noqda soo idinma dhihin. nin miyaa soo gaar yaabay? nin itixaaduhu ma ku dhacaa inuu inta meeshaanoo kala fadhiisto idin yidhaa adinkoo sidaan u jooga inuu guryo idin gelsho maahane oo saddex idin xarayste, inuu meeshaanoo kale inta fadhiista idin yidhaa kunuu itixaadiyiin ma idin dhihi karaa? hal yastadic dalika? ma awoodi karaa? idan dacwatuna mukhaalifatun lidacwati litixaad wagayri. waxaasoo dhan waa wax guryo hoostood lagu sameeyo w. laakiin annaga dacwadayadu waa dacwo ilaa ma kana calayhi salaf saalix. jidkaasaan la joognaan dadka waa u sheegayna kunuu salafiyiin, kunuu calaa ma kana calayhi nabiyu wa asxaabuhu. wardada wax kalood ku liibaanaydin lama arko ilaa an takunuu calaa ma kana calayhi salaf saalix. hada huwa dacwatuna. waxaan u malaynayaa salafiyadana waa la fahmaan u malaynayaa waa la fahmay. مع تحيات ولاله في تسجيلات ابن حنبل الإسلامية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.